madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya ayaa magaalada Dhagaxle ee deegaankaasi waxa uu maanta ka soo gootiyay cutubyadii ugu horreeyay oo ciidamo Liyuu booliis kuwaas oo ka qayb gali doona dagaalka ka soconaya gobolka Tigreega ee lagula dagaalamayo ciidamada TPLF-ta ee ka soo horjeeda dowladda dhexe ee federaalka ee dalka Itoobiya. ciidamadan ayaana la sheegayaa in la geyn doono jiidda hore ee gobolka halkaas oo ay muddo bilooyin colaadi ay ka taagneed taasi oo u dhexaysay ciidamada TPLF-ta iyo dowladda dhexe ee federaalka ee dalkaasi ee Itoobiya. madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa waxa uu muuqdaa inuu ka jawaabay baaq uu dhowaan deegaanada u diray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy oo ahaa inay ciidamo soo diraan si dalka looga difaaco waxa uu ku sheegay cadowga TPLF-ta. maamulka Soomaalida ayaana noqonaya maamulkii afraad ee ku biira dagaalka gobolka Tigreega ka soconaya kaas oo isagu saameyntiisu muddo 8 bilood laga dareemayo guud ahaanba siyaasadda dalka Itoobiya. gobolka Tigreega oo ay colaadi ka taagneed in ka badan 8 bilood ayaa hadda u muuqda inuu golay siyaasaddiisa iyo weliba sidoo kale ciidamadiisaba weji cusub oo ka duwan kii horay ahaa in ciidamo hor fadhin doonaan dhinacyada ayaana isugu jawaabaya warbaahinta in midka kale uu ka qabsan doono deegaanada ay gacanta ku hayaan. horay madaxda TPLF-ta waxay ugu sheegeen inay qabsan doonaan deegaano cusub kadibna u sii gudbi doonaan dalka Eritrea halkaas oo ay sheegeen inay qabsan doonaan guud ahaanba dalkaasi. 3 ka mid ah maamulada dowlad goboleedyada Itoobiya ayaa Khamiistii ku dhawaaqay inay ciidamo dirayaan si uga qayb galaan howlgalka gobolka Tigreega kuwaas oo kala maamulka goboleedka Oromida Sidaamaha iyo weliba sidoo kale SNMB-ga. ciidamada gaarka ah ee maamulka SNMB Oromida iyo Sidaamaha waxay u dhaqaaqeen jiidda hore ee dagaalka si gaar ahna ciidamada Sidaama waa ay gaareen furinta hore waxaa sidaas lagu yeeray warbixin ay baahisay dowladda dalkaasi Itoobiya ee loo soo gaabiyay Fana. waxay hore dagaalka qayb uga ahaa maamulka Axmaarada oo ay daris yihiin Tigreega kuwaas oo iyagu marar badan dagaallo uu ku dhex maray xadka labada dhinac. go'aanka uu maamulka Soomaalida ciidamada ugu dirayo gobolka Tigreega ayaa yimid maalmo kadib markii Mustafa Cagjar uu qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in dagaalka ka socda Itoobiya u dhexeeya argagixisada TPLF iyo dowladda federaalka ee Itoobiya. wixii intaasi ka dambeeyay Mustafa Cagjar waxa uu qaatay go'aanadiisii ugu dambeysay uu ku diyaarinayay ciidamo loo diro kuwa federaalka si ay u taageeraan la dagaalanka kooxda TPLF iyadoo ugu dambeyntii uu maanta diray cutubyadii ugu horreysay ciidamo Liyuu booliis kuwaas oo iyagu ku sugnaa deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. dadka siyaasadda gobolka darasa gaar ahaan Itoobiya ayaa ku macneeyay dagaalka ka soconaya ama dagaalka ka soconaya Itoobiya inuu galay weji cusub oo ka duwan kii hore oo ahaa kaliya inuu u dhexeeyay ciidamada federaalka Itoobiya iyo weliba TPLF-ta balse waqti xaadirkan uu dagaalku noqonay mid u dhexeeya qowmiyadaha gudaha ee dalka Itoobiya taas oo saameyntii uu horay looga filanayay ay ka weynaan karto inuu yeelan doono maadaama dagaalku isku bedelayo mid qowmiyadeed isla markaasna uu noqonayo mid ka soo gudbay dowladdii federaalka ahayd ee Itoobiya iyo weliba TPLF-ta waqti xaadirkanna uu noqon doono in ciidamada Tigreega ah ama qowmiyadda Tigreega ah dagaalkani u arki doonaan inuu yahay mid qowmiyadeedsan isla markaasna si gaar ah iyaga loo soo beegsanayo. waxaana tani ay dadka siyaasadda doorasho ku micneeyeen in arrintani ay saameyntii hore looga filan karay dagaalkii ka soconayay Itoobiya uu galay weji cusub oo saameynta laga filanayo uu ka weynaan doono kii markii hore la filanayay.